بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha sharafta badan ee ku xiran janalkeena caafimaadka ee caafimaad janal. Waxaa jirto 6 dhaqan oo Soomaalidu ku badan tahay kuwaasoo dhibaato weyn u geysan kara kelyahaaga. Waxaa sare u kacay dadka da'yarta ah ee la ildaran xanuunada asiiba kelyaha, taasoo loo sababaynayo arrimaha kala duwan oo halis gelin kara inaad weyso xubnaha ugu muhiimsan noloshaada. Fiidiyowgan waxaan ku soo gudbin doonaa 6 waxyaabood oo khatar weyn ku ah kelyahaada iyo caafimaadkooda. 1. Kaadida oo lisku celiya ama aad ka wahsato inaad suuliga aado. Arrintan ayaa sabab u noqoto in kaadiheystu ay dhaafto xadkii keedinta, taasoo sababta in bakteeriyada ku jirta kaadida si dhaqso ah isku badiso, sababtana caabuq kaasoo dib ugu laaban kara kelyahaaga, keeni karana xaalad loo yaqaan pyelonephritis oo ah infekshan daran oo ka asiiba kelyaha. Qodobka 2 waa cusbada badan. Ha ka qaadanin cusbada wax ka badan 5.8 garaam maalintii. Waa khatar kale oo ku qarsoon. Qodobka 3, ha cunin hilib badan. Hilibka ayaa ka kooban borotiinis xajmi adag. Markii jirku sii daayo ama markuu shiidayo borotiinka, waxaa la soo daayaa maado loo yaqaan ammonia, taasoo halis gelisa shaqada kelyaha, sababtana dhaawacyo daran oo kelyaha ah. Kullamaa qofka uu cuno hilib badan, waa kullamaa uu dhaawac soo gaari karo kelidaada. 4. Cabidda kofeega badan. Kofeega ayaa sare u qaada xaddiga cadaadiska dhiigga iyo shaqada kelyaha, kaasoo sabab u noqon kara in kelyahaadu ay yareeyaan shaqada. Qodobka 5 waa in biyahaaga ay yar yihiin ama biyo yar aad cabtid. Kelyaha ayaa u baahan in ay helaan biyo ku filan si ay shaqadooda si caadi ah ugu qabsadaan. Haddii aadan biyo badan cabin, sunta iyo wasakhda jirka kale laga soo saaro ayaa ku aruuri doonta kelyahaaga kadibna u soo gudbin doonta dhiigga, waxaana ka dhasha xaalad adag oo loo yaqaan uremia. Uremia waa kaadida iyo dhiigga oo isdhexgala. Waxaad u baahan tahay normal ahaan maalintii ama si caadi ah in aad cabto 8 galaas oo biyaha saafiga ah. Haddaba si aad u hubiso inaad biyo kugu filan cabtay iyo in kale, waa inaad fiirisaa midabka kaadidaada, haddii ay tahay caddaan saafi ah ama haddii ay leedahay wax qasan ama calow ah. Qodobka 6, ha ka caajisin in aad hubiso caafimaadka kelyahaaga. 6dii bilba waa in aad hal mar booqataa dhakhtarka si aad ula socoto kelyahaaga badqabkooda. Sidoo kale, waxaa jiraan daawooyin badan oo halis ku ah caafimaadka kelyaha. Run ahaantii waxaa u badan daawooyinkan la iska soo gatay farmashiga laga soo aruursado. Waxay halis gelin karaan caafimaadka kelyahaaga. Ha iska qaadanin daawo uusan ku qorin dhakhtar. Waan filayaa walaalaha qaaliga ah in aad ka faa'iidi doontaan. Una shargareey walaalihiina kale. Kelyada waa xubin muhiim u ah jirka bini'aadamka. Run ahaantii uusan ka maarmi karin. Caafimaadkeeda in lagu dadaalo lagana hortago dhibaatooyinkii ku dhici lahaa aad ayay muhiim u tahay. Walaalihiina kala gaarsiiya si ay uga faa'iideystaan. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir. Wassalaamu calaykum.